أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله مهدي صدق مركز هبوك صلامني أنك وناك اسفرين وحمد يتكربينا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري دمانتين كوكو انت فعلها نقدقو. طبعا حلقة نسعتي وأن كقصوا هذا لي حديث كي الثلاثيات كأها أو النبي عليه الصلاة والسلام: 3 مهلكات و3 منجيات و3 كفارات و3 درجات. نسدح وحول ردتك يكون هلاك سمان هلاك جوذنا وقتر غفكة وهي سدح داس وحقوه الرئيسي إنه شح مطاع دت بخيل لما إسكا قدر دارما وسكو وافق كل جود وأدعاء وأندتك حريرين وكسوا هذا لي هو المتبع أي كم يدها قف هودي سكرعوا والدين تأن ما ضيّنين وحر بدين أصلا مسكحيس بحكوا صار عسكشيكتا أن حتى عبادي أن الدليل أراسنين وعقيدتي سو دليل أراسنين وحاصلنا وكسوا هذا أن كان سدحادنا وعوها إعجاب المرء بنفسه قف كأنه نفتي سعجبيه أصلا وصومالي ده ما شاكنا دبعتنا هاي سكمتها هاي إنه قف كصومال رأيي سعجبيه تذكر أن سياسيين نقدين dadkan baarlamaan oo xukunay ka hadlayaan islaanta caanaha gado odayga meesha jooga kullu waxa la rabaa kursigaas in wada fariisto ama kursigaas in amaantan aan iska jiidno qof mar aan ka turno marka dada siyaasiyiin ah ayaa anaga waxaan ugu jirnaa rahan 20 sano u dambeysay Soomaali waxa curyaamiyay dadka siyaasiyiinta rahanta ugu jiraan ayaga asfiirsanayo danta ummadda fiirinayaan dadka beentoodan ay qaadicuuna anfusuhum oo wixii dadka waxbaan ay qabanayna ama waxba dantiina ka hadlayna laakiin dantooda gaarka ayaa markaas ugu horeysa danta kale. marka ilaahay waxaan leenahay ko ilaahay subxaanahu wa tacaala oo siyaasiyiinta oo 20 sano ummadda ka dagay la adahay oo dawladda kala adahay waxa la ilaahay xaqaato soo dhamaantood waxaan ka hadlaynaa marka munjihaadkan qaaran ka soo hadalna munjihaad marka saddexdaas oo qofka halaagto oo ku halaagsamayo saddex ayaa ayada oo ka anna nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wajawana kalima la siiyo waxaad arkaysaa in saddexdaas cilaajkoodu ku sheegaya macnaha cudurka ay wasafeenaya oo qofka naarta geenaya ku halaagsamay hadana daawadu ku sheegaya oo ku badbaadi lahaa. marka daawada anagana daawadaas aan u baahanahay Soomaalida aan nahay daawadaas ayna badbaadi karto. daawada ma aha mid qofka iska sanafanayo ma aha waa mid shariicada waafaqsan oo diinta walidalika wuxuu wasalaatu amma almunjiyatu markuu ka hadlayo munjiyaadka dadku wax badbaadinayo وحكوك بالله خشية الله في السر والعلانية وكهذا لي خشية الله في السر والعلانية هورنا أقصى هذا لي ما أنتم حكى لنا فقرة هذا لبعض وإذا ومنجيات كأه وصومالي يكون هلاك سنتي وأباهن صومالي هدير ما إني بدبادان إني كنت وحتى العدل في قفك العدل في الغضب والرضا قضب كاس يدل استاجدون نعاو إن شاء الله قفك إنه عادل هذا cadaalnimadiisana ay ku xambaareen inuu cadaalad ka leexdo markuu xanaaqsan yahay iyo markuu raali yahayba. Soomaalida mushkiladna haysa anaga waxay tahay cadaaladaas waa naga maqan tahay oo nabiga sheegay oo lagu badbaadayo. ninka Soomaaliga ah markuu asaga oo dawladdu ku jiro markuu danihiisa isku toosan yihiin ama xildhibaan ha ahaado ama bini aadan ha ahaado ama wax yar lacag uu ka soo gasho ummadda dawladda ay wax ka siiso waxa weeye maanta dhan raali waa cadaalad ma sameynaa marka dadka la dhibaayo oo la xumaynayo oo dhibka ku dhacayna uma jeedo cadaalad ma sameynaa maanta waxa waaye dawladdaas iska taageersan yahay xataa uu mana saxeenayo oo wax ma ka hadli karo halkaas oo meeshaas uu taagan yahay marka maxaa yeelay nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waxa la rabaa qofka markuu careysan yahay qofkaas markii laga xanaajiyo hada mesela guriyahan la duminayo la sheegay mesela guri markuu wasada gurigiisa ku jiro wuxuu leeyahay okay way dawladdu waa la jiriyaa dawladdu amaanaya markii gurigiisa la dumin mucaarado noqona waa xanaaqa hadan Soomaali saas waa nin baa wasiir laga dhigaya dawladdiisu amaanaya markii laga qaado mucaarado noqaa waa dad shalay maanta laga qaaday birina mucaarado ka galaa meel u diyaarsan marka waxa ka maqan al-adlu fi al-qada'i waxa la rabaa fi al-ghadab wa ridha ka maqan qofkaas waxa inuu caadil ahaado cadaalad ilaahay quraanka wuxuu leeyahay wala yajrimannakum shana'an qawm ala alla ta'dilu i'dilu هو أقرب إلى التقوى هدارت إن قف إلهي كعبساء أتاي مركا ماشي كل أحد جرتي الدولة ما بارمان كل جرتي ما حد حق درد وشيء ويسي مركا هذه واحد ثلاثة
markii adig jagada laga qaado maxaa mucaarad u noqotay maxaa ceebaha u sheegaysaa yaa kaa dhegeysanaya walidaalika soomaalida waxay keeneen tv-ga before iyo after la keenaa bas shalay ninka caytamaya jagaa loo dhiibaa maanta waa amaantama ilahay xadiiskan wuxuu leeyahay qofka raba inuu ilahay badbaadiyo waxaa la rabaa inuu ahaado alcadlu fi lghadabi warida markii laga caraysiiyo cadaaladaada ku taagnaaw markaa raalli aad tahay barwaaqa ku jirtid waxa aad raalli ka tahan cadaalad ha ka leexan marka dad waxaa jira markay raalli yihiin cadaalad ka leexda oo meeshay u eexanayaan markii oo laga xanaajiyine cadaalad ma naqanayaan walidaalika idaa qultum facdiluu ilah wuxuu leeyahay macquul miya aniga intaasana aad dowladda u shaqaynaysay ama xisbigaasa ka tirsaneed xisbiga dowladda ka tirsaneed maanta markaa ka baxda caytame ani caqliga maa laahay marka adaa dantaada caytamaysa hadaa waxwayse maane haddaa xaq aad tahay caadil haddaa tahay shala markaa meesha ku jirta ku dhihi jirta waxaan ma qaadan karno marka nin kasta dantiisa isku casilay dan ummad iskuma casilin laakiin markuu meesha soo fariisto wuxuu leeyahay aniga waxaa waye ummadda u daneeyey ummadda iyo shaksiga iyo ummadda yaa weyn danta ummaddaa weyn beentiis walidaalika caadil ma ahan kaas ceebaa shalay arki weyse maanta arkeysa maxay tahay macnaa shalay raalli ahayd cadaaladdaa ka leexatay maanta xanaaqday cadaaladda cagsigeedana waa jira iyadan cagsigeeda oo waa jira qof waxaa arkeysaa maantana waa qaylqaylinaa dowladdu mucaarad ku yahay cadaalad ma sheegaya xataa dowladdu wuxuu ku fiican tahay ma sheegaya dowladda ila ma wada xuma dowladdu waxa fiican ay qabatay waxaa la rabaa qofka cadaaladda acti kulladii xaqa qof kasta xaq uu leeyahay nafsiisa la rabaa cadaaladda ma aha macneeda markaan waxaa maantana mucaarad u ahay dowladdu caynayay maantana ceebta dowladdu sheegaya dowladda inay dunteero baa dagaal u baraarujinaya markii asaga uu ka baxa oo meel galana dowladdu amaana caadil maaha halkaas caadil kuma ahayn hadda markuu raalli yahayna cadaalad ma aha nabigu wuxuu leeyahy dadka waxaa badbaadi karo alcadlu fi lghadabi waxaa badbaadi karo walidaalika dhacdooyinka dhan soomaalida markaa aragtid waa iska akriyaa bis ninka markuu hadlaya qabiilkiisa ka sakartaaba ninaa waxa cadaalada gurigiisa ku jiraa reerkiisa lama taabanin guri lagama duminin dowladdu iska taageersan gurigiisa markii la dumiyo dowladdu ka baxay marka cadaalad maaha reerkaagii taada fiirsatay marka ninka soomaalida mushkilada anagana haysta waxay tahay nin kasta markuu warka diido markuu caroodo cadaaladu ka taga ninka soomaalida arag nin kasta markii laga xanaajiye arag walidaalika nabiga alayhi salatu laysa sarc wuxuu ninka oo lagdanka yaqaan maahan uu yiri waxaa waye maxaa waye cinda alqadab man malaka nafsu cinda alqadab markaa carootid inaad xareetid xataa qoyska umaaw arrimaha qoyska ninka gabadha markay isqabsadaan waxa weeye xumaanteed inuu sheegay gabadha saasay samaysaa saasay samaysaa war intaasaa sana la dhaqmaysay soo qarinayna ha maanta maxaa u qariyaysa maanta cadaaladda ka tagtay iidan sidoo kale ninkeeda maanta ceebihiis sheega saas uu igu sameeyaa sheekh saas uu igu sameeyaa saas uu igu sameeyaa war tama sano ku qaba 20 cunug ah kaga dhashay waxa u dhashay marka cinda alqadab qofka inuu ismakli wala atamalluq cinda alqadab waxay kamid tahay nabiga calayhi salatu wasallam leesha sarca wuxuu yiri ninka dadka lagda ma ahane wuxuu yiri ninka waxa waaye walidaalika walkaadimiin alghayd sifaat almuttaqiin waxa kamid ah walkaadimiin alghayd qofka caradan maciisha kara marka Soomaaliya aniga hata dhaqan inuu naqatabo حتى لما قفض مركي إسقف صدان عدالة ما وحاول تي في وصفر يسنا وحول شيء هي ما أهم هي لما قف مكال قار ذكر لما قف عدالة ما هاي نيكو ربو أمانة نيكي كلام وحنيه عدالة ما معناه كان رالي كتاهي كانوا عاري سنتاهي حديث نقول ليه والعدل في الغضب والرضا على قاربة سومالي ساسوي ضد وحول كله معارض كفيري دولة كفيري ما كرت كفيري ما تنو حركة wuxuu sheegayaa ku TV soo koro feer مثلا wuxuu rabaa inuu ka hadlo meel wuxuu ku leeyahay laba waxa alkayl bi magayaaleen waxa arkaysaa inta markay tolkiisa ay tahay wuxuu amaanaya wuxuu leeyahay wallahi dowlad goboleedkaas xad uu ku taagan yahay xaq uu ku taagan yahay waxa laga yaabaa sifado kuwan ku eedeynaa dowlad goboleedka kale ku eedeynaa inay ii naftageeda ay mushrik ku yihiin oo sharaaka ku yihiin laakiin kuwaas afkooda ka dheer maxaa dhacay kuwaas tolkay waani ma sheegay ninkana u jeeda aniga marka anaga ummadda dhamaanteedna tolkayga ma ku jireena ileen madaxweynaha ku naqanaayay nin samada la keenay ma naqanaay nin tollo nin qabiil ka dhasho naqana marka qabiilka markoo kor qabiil kala qabanay qabiilka kala cadaalad laga tagay marka walidaalika ikhwani mushkilada ay leedahay ay kala wadaalika alqasd الاعتدال والتوسط waxa weeye aan diinteena qabto ولذلك النبي ودي عليه الصلاه والسلام ان قاضي اسو قضبان لا يحكم القاضي وهو غضبان اسو عريس حكم كره قفا wuxuu ku leeyahay maan fi ummad qof ceeb ka saleen ma jirto
كل ابن آدم خطأ وقفة دعاي لكن الاستديات أخطاء اللي مركي لصو كوب وأتري كان أخلاق دي سوا قرنا كان مرة عدالة شيء كانوا أكعب سنة يصير ضد كأنه يكون يراهن قال من أخكرت سوما تحكموا وضواي لكن حكم كله قالوا هذا السياسيين تيرمان فرقوا در فريان مرة قارقوا الصومالي وحرمان إني معارض كي دولة وحكش كان عدالة مقهى يعني ننكس نكون تاجر سوي وقال لي إنه وحياة سليم نكون نعبي هنا وحناقصين يعني وحربوا كشيء ما حد عي وحوا نفسي إنه رال قرر ربا لكن إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ورشنا أنا قوم قول عداوة أو قبتد قبيل هبل أنا عبتهاي صوم مدح ونقن كرا هذا دد والجوينيس ومشكلة وين آية القرآن قلافتي عيل قبيل وقبتد إنه صومال قبائل يسكو دشي قبائل كاس عيل يسكو قبائل مركب قولنا قبيل هبل إنه محوين قد مربته ولا ريزواري والربن ولا كان أمر ربته والمنصب كان أكوريسيد وحكدرن دتك سياسيين تشعب كدرن ودتك حق شيء كرين حق ما شيء كرا شعبك من كسر شعب فيه ما تنتيسوا كل شيء ولا دولة ده مرة واقو عينه حتى حق شيء تذوق ليه وحكوا لي سو أصلا وحكوا جرو كوسفة ولا قبيليستا تاه الشيخ أصلا قبيليستا يا مركز فيدي صورة وأنا قصيو هاي القف كسر ويلكيس وحكوا جرو ضد كل شيء عظمة وحادي أتى ضد كل شيء جيسا ولذلك محل عقدة كام عراكة موقته وحليه مركز مظاهرته هذا محاكم ده وحليه مظاهرته النتائج وحاوي مركز هوري أو كو كتهاي قفك إنه إلاليو إلهي سبحانه وتعالى الإنصاف في الأحكام كو مظاهر كي وهذا قف صومالي وحيدة قر لبا قف كما قصيص لبنين كما قصيص صومالي مركز ذكور وقيبته لبنين يقدرها لكن لبا قف كما قرت كما قصيص سالين مركا هذه مرن أنت جيك منافقين صفات منافقين تأساسه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حتى الشعب كساسي نقدين حق ما بشيء كرنيك صعبي ورنيك وحا قرابة هذا أما مدح هذا أما معارض هذا وحبنا وكو صحيح وإحنا وكو قلديها ماشي كرتا ما كرتا ولا لو تاسوا كقاعدين تنوا كقاعدين هل حس قبلنا أركاي أو سوشيال نقولين كان أو هيئة إن سيفل سوسايتي أو معارض كلا فريستو يري ولا دولة وحاسة كانت محا كانتين ما كلمة الحق وي ما كجوابي كران هذا هدف كلنا حوا إن الريدو قف الريدو إن لا حق معها دولة وأنا لها لفتة لا لها واي ومدة محا وهيسين ذاتك وفرة شرق قبنيسا مظاهرات على قبل منها أي عدالة مرك عدالة مسميه كرتا هذه مرك حارتها ضد وحارتها تلقى جناق نعسيد ونينا أسكن عضي أرتها نوميش وكد الدجو نينا ودي ثارتها رركها إنه كرو كان سيدو كلو حوربا نيك ريركيس ماشي إنه كوهايو كان عدالتنا كتغن أنمد إلهي مرك أنا ونسكين صلي ذي ساسس كو صلي ذنا إلى قيام الساعة ساسس كو هاي سنين مرك وهنا عدالة قفنا لو قبنا واي حق قف شيء قد يسلو ما طلع من لو قبوا هلا قاشة وردت فيرد دتك إنه كوجع على هذا محكو تري هذيك دتك أنا دتك إنها رالي قريب رضا الله يا كم مثل رضا الناس دتك إنها رالي قريب وحاجة مثل برعاو مرك أنتو أنا جو نين ظالم حق أنا كنت أجني إسكال سفنا يسون دبعت ما دبعت وي مركا إنصاف كاسا كميدة إن مظاهر تهذا حكميدة سيدو كله إن التأني بالقرارات جو أنا كدق إن لقى هذا مظاهر كميدة وقفك عادلك حال رما إنه دقن وقفة دي كوسو دعوته قصاتا قضاتا هذا حكم هذا وحلا شيء مصيبة وي قرية تتسكر عين قرية تسكر عين وكل سير لأيين إلا حتى إن ما قرية تطلع هستا أو محكمة من الجيل واحد دبها لأقولكم أنا عدالة معه هدور هو كل ساري كره دوكيمنتي الله هستا عدينا تال حولي ورا قرية كب حد مليد قرية مليد قرية دولة نفتي هذا وحيا كل حياعي قرية لولك دولة على قاعدة ما يروح عليه صبر لي والله هستا كي أو دولة هورا هاي سنة يا كل ساري كرو نك عارف ورمت عدالة معها حتى ولذلك نك عدالة وحل قرار يقارن نك تيفي قايلنا هذا أركتت أو قايلنا إنها ترى الله ده لا دلمي معها حاول إنها ترى هيد أدقيست جانب ككله ولذلك قرار كأقادن يسد إنه لابد إن هذا الرم حد عي نك قاليجا أو حال ربا لابد إن يعمل كونه لكن أنا وحاول ورن دت ديله أو هاجر أو دت كنا صوت ديله وحياه
aan la xasada waxa dhageysanaya dhinac wuxuu ku leeyahay dhulkan aniga inta sana jira ma qasana degantaa 15 sana degan uu yiri 15 sana marka dawladda hore ma aha 30 sana dawladda hore ma qantaa laakiin dadka waxa laga yaabaa inuu dhaho dawladda hore u haasta wadaalika war shacbi ummadii waxay u kala gaar xaqi sheeg la adahay xaqi ka bane al-adl في الغضب انا مقن لكن كستو او يرا انيغو مسكينه اهي والد المي وركيس رون ماها قد تليفونك الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ سؤال قبل. تفضل اخي ويدي. ما دام عدالة أكهد ليست أنا هذا وحكون لنا سوماليا joogo wadanka dawladda iyo dad kale oo kasoo horjeedo ka dagaalamaya marka midda dadka la dagaalamaya waxay sheegtaan in ay diin wadaan diin dawladdana waxay sheegtaa dimuqraadiyo inay dadku xukumayso waxaana ognahay dawladda inay caabiyaan sida Mareykanka iyo wax lamid ah marka ma dhihi karnaa hadii dawladda diin ay wado Mareykanka ma caawinayo qolo diinta ka shaqeynayso inay diinta hirgasho rabto saas ma dhihi karnaa may adiga su'aashaada sheego waxa dhihaysa su'aasha qabtay maxay tahay waxa la dhihi karo waxna aad dhihi karo waxna anaga culimada dhihi karto waxa adiga su'aashaada weydiiso su'aasheedu waxay tahay dimuqraadiyadda ma la mid tahay shareecada isku xukumideeda طيب ان في شريعه الاسلام ka ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiisa isku xukum cididan malaha waxaan filay xalaqada horan waa kaga hadlay oo arinta waa kaga hadlay dimuqraadiyada hadii diinta ay ka soo hormayso horta magaca dimuqraadiyana fahna way waxa la yiraahdaa al-hukm ala shay far'an tasawwuri hadii waxa oo marka hore abaal ka dhigtay adiga oo haddana diinta u horgeysay tira diinta iyo kan la iska hor keeno maya nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam waxay ku soo dagaayo oo quraan ku soo dagaayo oo ma yantuq aan hawa markuu Madiina tagay heshiis oo qolo la galay waxa la qoray diiwaan waxa la qoray wasiiqa la qoray wasiiqadaas waxa ku qoran ma la dhihi karaa maxaa wasiiqadan loo qor-quraana soo dagay ma la dhihi karaa ma la dhihi karo maxaa yeelay waxa la fiirna kaliya wasiiqada waxa ku qoran quraanka muxuu ka qabaa marka hore quraanka loo bandhiga shay kasta oo islaamka oo soo baxo waxa la rabaa in loo bandhigo diinteena diinta waxa ka sheeyay islaamka magacyo ma xukmo ninka haduu maxamed la baxo oo qaatil ee dadka dilayo maxamed nimo ma lagu dhaafaa nabi magaciisa wata ma lagu dhaafaa ma lagu dhaafaa islaamka tasmiyaadka ma fiiriyo ee dhaqanka oo fiiriya anaga shariicada islaamka way balaaran tahay نعم شريعة الإسلام كذا كسو كوبتي اللي قعنتي إن الجويو أو باب الحدود كسو كوبتي شريعة الإسلام كوا بلارنته هذه بلارنته شريعة الإسلام مير دحال كسومالي ذا دوحن كقيب سنة شريعة الإسلام كقيب سنة نكاح محكمة ذا شريعة الإسلام قالوا حكومة ان وحيابها مركي قصاص كلا قاضايو وقفك اللي ديلا ايده وارتين سورة مائدي وحبا لسو ديرسدا marka كو horta waa inaa fiirisaa wixii shariicada khilaafsan ولذلك qolada baarlamaanka waxa yiraahdaa aniga hal yiraaho xeer dajiyaal hal sharci dajiyaal hal maxay la figa sharciga waxa laga yaabaa mustalax sharciyeed inay tahay laakiin qofka xeer waa degsan karaa nidaamka la isku maamulayo xeerkeeda waa la degsan karaa oo Abu Bakar si lagu doortay Umar lagu ma dooran Umar si lagu doortay Abu Bakar lagu Ali lagu ma dooran Usman si lagu doortay Ali lagu ma dooran marka tadaawulka sultada iyo إلهي وحوله قرآن كحنا أمري وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر نبي يقول وحي يقول دقة ما ديك هذه وحي يقول دقة محو أصحابته ولا تشنا وحو أصحابته قال تشنا محيتها ما إلهي وحكته قال لي كرامية وحو ولو أمر النبي اللي يجري وشاورهم في الأمر والآيات قتال وأمرك وفي إذا عزمت وحليه دقالك أحد مركي قلافين آيات سبب نزول الله ذا عرونا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قفا لقى لا تش أصحابته marka haddaan dhahna ka waran nabiga joogo calayhi salaatu wasalaam quraana soo degay maxay tahay dadka la tashanayo marka dadka la tashanayo ahlu xal wal aqd ee shariicada islaamka oo majlis shura ajr majlis shura in la yasa tashado maxaa dhacay masaalix al-mursal islam shariicada islaamka waxa la yiraahdaa masaalix waxa la yiraahdaa waxa jirta oo mursal lahaay macnaha waa masaalix islaamka mana reebin mana amrin in la sameeyo waa masaalix caam ah ummadda ku dhex qalabsantahay دولة كسن وقال مركا أنا وحنا قبل ديمقراطية الشيء نفسه الإسلامين كرا لفتة الإسلام على قديه كرا هذه الربع مقع
laakiin anaga mushkiladnaas waxay tahay dadaa mustalaxaad iska qaatay mustalaxaadkaas isku dilnaa magaca dumar qaada dilisha dad looma dili karo sheekh islaam ibn taymiya waa diiday asmaada waa isbedeli kartaa asmaada waxay tahay male in allah laa yanduru ilaa suwarikum xataa shaqliga quluubta iyo xukunka ayaa la fiirinaya marka cilmiga u baahanta arrintaa inaad ma tiraahid maanta dadka muslimiin ma aha maxaa dhacay diintay diideen inaad ku xugto soomaali dhan inaad tiraahid gaalo waa mushkilo cajiib waay marka dad ahlu fiqi ahli caqli inay arrin doodaas dhex martay fiican tahay waqtigana uma hayo hadda anigna intaas badan kuu sharxo haddaa ula jeedid islaamka shacbiga soomaali muslimiin ma yihiin dowladdana maanta dastuurkeeda ama xeerkeedan leedahay xataa haddaa diida dastuur xeerka wasiiqadaas ay ku qorteen waxa ku qoran fiiri maxaa ku qoran qamrada banaanta ma lagu qoray may islaamka ay kormaane wax waa banaaya ma lagu qoray zinada waa banaanta ma lagu qoray maya islaamka diiday marka maba sharciye kana wax diinta ogol anaga diideen ummadna culamadan way joogtahay laakiin masaa'il ijtihaad aniga ku khilaafay oo adna si u aragtay ana soo warday u gaalayso waa mushkilo taas ah mushkilo qadka telefoonka halo الو قدكاس waa ka baxaan filay asagana idan madaahirta waxaa kamid ah wuxuu leeyahay sheekh islaam majmuuc fataawi wuxuu leeyahay in alcadla waajib likuli axadin cala kuli axad موجوده في كل حال واذا كان الانسان يحب شخصا او يكرهه وجب عليه العدل فيه anaga cadaalad ma sameeyna dadka nacibnahay dadkaas oo horjeedo oo fikirkaaga khilaafsan ra'yigaad ku khilaafteen cadaalad ma samayn kartaa qofkaas ma dhihi kartaa wallahi hebel waxaas uu ku saxan yahay dowladda nafteeda hadda ay sheegayso waxbay ku saxantahay ma dhihi kartaa xaq geesi ma tahay ma dhihi kartaa dowladda waxaas waa ku fiican tahay ma dhihi kartaa adoo necab xataa oo ijtihaadkaaga kugu khilaafsan ma dhihi kartaa ma dhihi kartid wadaalika xadiiska meeshaas ka khilaaftay aan khilaafayna oo ah alcadlu fi lghadabi inaan cadaalad aan sameyno markaa xanaaqsannahay iyo markaa raallinahay markaa faraxsan tahay iyo marka kale cadaalad aan sameyso laakiin waxa waa kullu xisbi imaam ladayhi farixuun laakiin marka nin kasto asaga wixiisa uu ku faraxsan yahay oo qofka kale cadaaladiisa uu sheegi karin fir islaamka cadaaladda ahlu kitaabka uu sheegay dad ahlu kitaabka diinta ma diidino saa ومن أهل الكتاب من إن تأمنه وحوليه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إليه عدالة سفيري عليه أهل الكتاب كان قال هذا هل ويل قموض شوبن ضد وحكوا جرالي لو أمانة كفي عن ما ديه كرتا أمرك دولد وحاسي كفي عنتا مايا وعلى هذا دينتكم حكم تأسك أمنتي وحكست يستحد أكتاد وكحيين معارض وحكست يكون صحيين أكتاد وكحيين وهذا هذه المصيبة ولذلك أنا وحرمنا عين الرضا وحليه قفك عليه قفك عين الرضا وحليه تبدي عين وسقطي تبدي المساوية نيجي قبي أو قبي ما قفها نعبتها ما أنت أنا شيخ أنا نعبتها شيخ بكو معها دينته ما قابر وحمية كانوا وما أنت دينته فضية دينته أتكيا ما أنت ماشي هذا كجرت هذه قانون اللي وحرت إليه قانون كجرت عدالة إلهي كو أمري وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو نصوص تصل أوي مرتي محيا لي نفط إلين اتباع الهوى ولذلك حديث كان أيضا والله يسأل اللفظ منجيات كون النبي كتب عليه الصلاة والسلام العدل في الغضب والرضا وحي اتباع الهوى كسور جدا علاج أطه اتباع الهوى وعلاج عادل أهاتد أنا أيد ما تنقصوا عن ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا أنا كانت عقدة أسكو قبائل كان عقدة أسكو قبانا دول الإسلام قبيل كالهيل رير هبل سو مدح كنا كنكرا ددا تاغن ساس هير هبل سو مدح كنا كنكرا ددا تاغن عدالة أنديدن أنكو حكمين القفكا محو قبطي محو هلي أنكو حكمين عيويس لونو سو أرنا ما أنت نوع أركيسا معارضك ولذلك معارضك واحد لسه وحال ربع قفك إني عدالة أو شيئا ولذلك أنا معارض ما بقبنا معارض أو أشخاص ما معارضة حتى قالت الديمقراطية أشياء يسد نين معارض كل جسم جرو اندبندنت واجرة كلها لكن هذا نوع إني حزبي معارض رسمي ودولة لا ترتمي كروكو معارض وحواي وكراس بدن لو حزبي له نين حزبي كجورينا وحقول أنا معارضة معناها وحواي أنا وحاجة عليها واي هدموا دولك ودنك دقال هقلو waa mushkilo wey
qolo kalena hoosay ka fadhidaa waxay aaminsantahay kuwan waaba xaq iskuma hayaan marka laba dhinaca shacbiga ku gubta shacbiga iyagana asaga kuma takunu yuwalla calaykum shacbiga iyaga naftigooda dhibaa ku ahaasto cadaaladda ma sheegi karaan ninkay la jiraan xataa ma dhihi karaan meeshaas oo ku qaldantaa ma dhihi karaan arrimaha dhulka hadda imisaan ka hadlayna dhehen war dowladda arrintan ha fiiriso hadda waa joojisaa laleeyahay waxaa tiri ma la samaynayo alxamdulilah talada waa inay qaadataa inay ummadda maantana oday waayeel cabaadaay kan cabaadaay haddaa ka hadli karin oo aad dhihi karin aad dhehaysa maantana dowladda saxanta guryaha ha dumiso waa mushkilo wey laakiin alxamdulilah talooyinka iyo waxaan meelaha ka sheegayna waa qaadatay hadda waa qaadatay hadda bal guryaha dhisaa leedahay dowladda waxbaa dhisaa bay leedahay wax fiican tahay waa lagu baraarujinaya qadka telefoonka ayaa su-aale ayaa waxaa lagu soo qoray whatsappkaan fiirinaya dadka qofka soo oo codka usoo bixi waa whatsappka kusoo qori karaa marka qofaa su-aasha kusoo qoray whatsappka sheekh yurub ayaan joognaa waxyaalaha aan xalaasha ahayn ayay iska gataan ayagoo u malaynaya in ay soomaaliya joogaan oo kale nacam waa khatar waa arrintaas dad qaarkood xalaal fiir qofka inuu waxay nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi in alxalaala bayin walxaraam bayin xalaashii xaraanta islaamka waa caddeeyey marka hadda aad dhehaysa ana yurubaa joogaa itaqi illah xaythuma kunta ilaahay cabsidiisana ma aha waddanka keliya in looga cabsana meel kastaa joogta ilaah looga cabsana marka inaad tirahda hilibka xaaraanta aska gadana iyo meelaha gaalada ka adeegana iyo diinta ma qabto diinta waxay lee qabtaa xalaasha raadi qofka inuu xalaasha raadi ah maxaa yeelay jismiga xaaraanta ku dhacdo waxaa lihi naarta ku degdegayso ilmaha xaaraan markii la siiyo ama xoolo lasoo xada la siiyo ama qofka cadaab u galaa hadduu qamro cabo xaaraan hadduu cabo cadaabkiisa banaan galaa hadduu saas ku geeriyoodo hadduu ka tooba keenin marka khatarteeda leedahay waxaa jirta su-aal kale iyadana oo halkaan lagu soo qoray su-aashaas sheekh su-aashan aday ku qusaysaa laleeyiba nacam dacam su-aalaha kama cabsada aniga su-aalaha waa ka jawaaba haka baqin waa kaaga jawaaba insha allah sheekh waxaan maqlay inaad tiri ninka xaaskiisa waa kufsan karaa arrintaas ma jirtaa baarak allah fiik akhwaani mushkiladana haysata waxaa waaye qolo waxaa jir soo baxda hadda culammada ceebtooda raadinayso oo hadallada inay soo jarjartaan meeshay rabaan kasoo qaadanayaan oo haddaa sheegayna waa alghadabu cadaalama sameyn markay xariisan yihiin diintay necab yihiin ama culamada ninka dabcan culamada diintay xambaarsan yihiin marka si waxaa la yidhaahaa si ay diinta kor toosda wax ugu sheegaan qolooyinka aan social media ku aragno hadday diinta toos u caayaan ama wax ugu sheegaan waxay leeyihin waan iluu soo hajuumayo ninka soomaaliga diinta lagama taabto ninka soomaaliga ilahi wuxuu ugu gargaara waxaa waaye xuraasul islaam aa dhaha islaamka ilaalina anaga asoo kan qabrada cabaayo axmed didaad ayaa mudakarihiisa wuxuu ku qoray wuxuu yidhi anagoo tabliiq ah ayaan waxaan soo marna uu yihi qolo cabaysa koonfur africa oo nin soomalilan ku jiro qamray haystaan marka mid cadaan ahaa wuxuu yidhi marka usoo dhawaan qolo iga tabliiqay ahaayeen ayaa diinta caayay wuxuu yidhi anaga intaa gaarin kii soomaaliga qamrada cabaya dhalada ku jibay diinta ilaa diinta wax ma ka sheegi kartid qamr wuu cabaya asaga laakiin diinta waa ilaalina marka soomaalida diinta ilaalisaa marka qolooyinkan gaalada ula shaqeeya maaragta oo hay-adaha iyo diinta inay dumiyaan rabaan diinta toos day u waraaraan soomaalida in adeerkooda ka fakanayna dagaalku qaada ogyihiin marka rumuusta diintay rabaan marka culamada markay aadayaan ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha ilahi wuxuu leeyahay wajacaluu acisata ala adilay ka dhigayaan waxay rabaan sheekhan dhulka ay mariyaan marka walaalka maanta culamay ku dhagan yihiin saasay tiraaha kuwa feminista soo baxay dumar ah oo u maleeyo diinta inay dumarka cadow ku tahay masaakiin waxaa laga dhaadhicay war diinta say gabdhaha u karaamaysa diin karaamaysa ma jirto kirishtaankan iyo arkaysa baadariga halkan ingiriiska gabadha ruuxeeda nijaas miya mase nijaas may ka hadlayeen qarniga sideeda ay ka hadlayeen waa akhriya malku thamin boqorkii thami oo sideeda arka baarbaanku ay kaga doodayeen gabadha ruuxeeda nijaas miya mase ma ah ilaa hadda ay caariyaad ka dhigaan ay dacayada ku sameyn gabar wixii baabuur naaqaawan xanjad markii la faana salci ka dhigteen waa gataan gabdhaha islaamkan waa karaameeyey waa sida ukunta u ilaalina laakiin gabdhaha masaakiina wax umaleeys inay xuriy la siiyey oo diinta xaqirtay u maleeyaan marka kuwaas waa kuwa oo aan fahamka qaldan oo u baahan in fahamkooda la saxo masaladana ka hadlaa marka masaladan waxay ahayd su-aal barnaamij laga wareystay oo qolada waagii baarlamaanka ka hadlayeen kufsi maxaa la yidhaha hala qeexa kufsi
kufsi ala bixin dowladda xeerka waxaan ka hadlay markasta dhaqankeeda wax lagu qeexaa dhaqanka Soomaalida ee leedahay baarlamaanka Soomaaliya askal xeerkeeda oo lagu dhaqay xeer Soomaali ee dadka yaqaan way waliba anaga xeer aan jirnay Soomaaliya xeer dhaqameed aan jirnay anagu diin haysana xeer haysan jirnay ma aqaan qolada oo hadda dimuqraadiyada iyo baarlamaanka hadlaan xeerkaas maxay ka qabaan laftigooda maxay dhigi jireen ma aqaan in la weydiiyo way Soomaaliya dhaqankooda xeerkooda iyo sidii gabdhaha u kala guursadaan iyo sidii ay gogosha u dhigtaan geedka go'aanka lagu gaari jiray quraanna waa aqaaneenay maxay go'aan geedka u gaareen quraanka maxay isku dabaq waayeen ninkaas inay weydiiyaan waa kii qoladii wax weydiinaysa marka xeerkaas laga hadlay marka xeerka dhaqanka in lagu xambaaraan rabna anaga maxaa kufsi shariicada islaamka fiiri xadida sariqada qayb macnay leedahay asariqatu macnay leedahay alqasbu xoogida hada kufsiga waa xoogida waa magacu leeyahay على سرقة بركي تعريف عليه أخذ شيء خفية بحرص مثله وحبا لك تعريفه نين العق أنت بنانك قاتي أدو أركاي قاتي وأي حدا ما دي كرتي العق أدو حدا قاتي أدو أركاي وقاتي لكن إنك مركو مجد قاتو ميل قرصنتا كجب صدو كارسفورت كبع صدو تو الليل هبين مجد قاتو وقتي أودتك أركين وحدا لكن إن هرت هذا قاتي أوكيالكي قال قاتي هل كان لو قاتي بالكي أنا شبه أسكيري هلو بدي هبن بابا لو حدا ما دي كري محايله سرقة ما الله له ما قاعد كلا leedahay marka ikhtilaas jiro marka ahkaanta anagana furuucda asmaadaas ayaa magac u reey marka waxayna shariicada kufsiga waxay u taqaanaa wixii aad xaqaaga u leeyahay ka hadlay laakiin kufsi ma banaayahay ma banayna ani kufsi ma banaan diinteen fiir zawaajka ilaahay wuxuu leeyahay mawaddatan wa rahma wa min ayati an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilayha mawday gabadha iska dhaafi kufsiye gabadha hadaad dishid darar way bacda fuqaha waxay xaqaa qabaan in furiin dalba karto la darar wala dirar marka ان سي ديل او وين مبرحان كهدليا مبرح هداك او ديل او ادشيد وحواي انا ضر او اركتو قبل هدي والدكيد عايسد ضر او اركرتا نين كان لما جوغا ابي هويدا عاهي دي كرتا ولا فرينه دبكرتا اسلامك عيد قميسنيسا مالها wax xog lahayd arintan sifraash kana mawdi iyo raxmi ku timaada marka Soomaalida dhaqankeedana waxba la sheegi jiray mararka qaarkood gabdho waxaa jira oo ninka xoog in wax lagu qaato jecelbo dhaqan waa la sheegay marka jirri waa maleena gaalada naftooda waa laga sheegaa ku igu la dilay wax laga qaato kaasna shaahid Allah shaahidka lama xukumo marka inuu laakiin la yiraahdo usuulda kufsi banay la xaasha kufsi ma banaano diinteena waa diin raxma ah gabadha dib loo geesto xaqay u leedahay diinteena mana taqaan laakiin markii qaanuunka gaalada laga soo hadlayay ayaa compare u sameeynay ilan gaalada waxyaabaha ay xisaabato waxyaabaha qaarkood ay kufsi u taqaanaa ana waxa leen kufsi ma bal gabadha xaq waxay leedahay inay furiin qaadato xuriyadeeda qaadato intay sharci gaar ay ku dacwo lahaydba marka ma banaano kufsi nin xaaskiis kufsanayna nin rag ma ahanba nin gabar u qaada ma akramu nabi wuxuu ma akramu illa karim hada arad nin gabdhaha u dhaqaaleynaa waa nin karim nin wanaagsan wama ahanum illa laim nin xataa aflagaadayna gabdhaha la qaadanaya caaya iska dhaaf kufsi ka hadlaysa diintu waa cambaaraysa waxay tiri waa nin xun weey kaas marka taas u qaada ya been lagu sheegino hada la soo gooyina qaadatid ya meelaha lagu dhigin insha Allah telefoon halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله البرنامج كم قبل قلنا برنامج إلى تالي ما برنامج سؤال داخل تويد سؤال شاد سؤال انقوا هاي هذيك شيخ اصول يا معلم ها قرقات عدك قرقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ اصول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وعن مقعي وحا احمد سهل علي واقرت waxaan ku noolahay dalka Holland واقرت marka waxaan Yurub soo galay waqti horaan Yurub soo galay hay marka waagi hore masaajidku aan tagi jiray oo ku tukan jiray واقرت muddadan dambe markii aan sharciga helay oo xanuun yar oo caloosha dhibaato iga taalo ma fahamtay oo bir camal ah واقرت marka masaajidkii markaan tagaayo markii dhibaato waxaan ku qabaa macnaha ma fahamtay hadalka iyo waxyaabahaas qaylada iyo buuqa iyo ma fahamtay sawaxankii codkii ma fahmino واقرت marka walaadu ma jeclaan lahay diinta maxay qabtaa inaan gurigeyga ku tukado نعم qofka xanuunsan gurigiisa ku tukan kara hadii xanuun uu jiro
oo dhib kaa soo gaarayo oo dhow haddii buuqaas maqashid dad wax yeeli kartid oo xanuunsan kartid gurigaaga waa ku tukan kartaa. ما سنتها بذات ما سنتها معنا. جزاكم الله خير. sidoo kale sababta lagu dhahay makase qofka oo asagoo caraysan cadaalad samay karo, qofka asagoo caraysan cadaalad samay karo waa qof manhajka ambiyada haasta weye. haddaad aragtid qof laga xanaajinayo oo aan xanaaqaynin oo xataa dadka ka xanaajiya cadaalad u sameynayo, cumar ibn khataab ayaa waxaa laga hayaa, waxaa la yidhi waqtigii jaahiliya nin walaalkiis dilay ayaa jiray, qatala akhaah. marka cumarna amiir muminiin waa hadda ninkaas jaahiliyada walaalkiis dilay, waa u yimid wuxuu ku yidhi cadiyada aad qaybinayso wixii aad qaybinayso ummadda oo maalkii loo qaybinayay baytulmaalka wuxuu ka weydiiyey. cumar wuxuu yidhi ninkan walaalkay dil wejigiisa laga qariyo maxaana ma dayi karo uu yidhi, waxaa laga yaabaa qofka waa dhibsan karaa qofka aabaha dilay qof haddaad aragtid inaad wejigiisa aragtid. qadka telefoonka halow. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج فيه سؤالها ها شيخة. ها صح شيخة سؤال ويديني ويدي. ولي سمع. واكو مقلا ويدي أخي تيفيك هداون أما واحد داوني تلفونك هذا. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخة waxaan weydiin lahaa su'aal. هاي su-aashaas oo ah waxa weeye inaan beri hanti ii dhiibtay. وحمو كو ديبت ها shaqo wuxuu ii dhiibtay maxaa la rabaa meherad. شقانا أو قبتت ها meherad buu ii dhiibtay Waa uu yahay meherada. هاي أخي هذا أنا هاي السوق إنه هذا السؤال إسراع سي dabeed markuu meherada ii dhiibtay waxa weeye maxaa la rabaa meheradaas wuxuu hantidii waxa weeye maxaa la rabaa waxa hantidii ii dhiibtay baa lagu yiri aan maqlay in hantidan ba yani meheradu ka shaqayn jiray ay xaraan tahay hantidan uu meel ka shaqayn jiray ka soo qaaday واقرت anu markii hore ma ogeyn meheradii waxa weeye sidii ku baabaaday badhna isaga qaatay hantidii anna badh bay gashay xoolihii waxa weeye badh iska qaaday ma grants أساكو سي haa isagaysi واقرت mar dambaan ogaaday inaa haran lacagtani dee yani hantidan uu ii dhiibtay intay yani meelka isagu ka keenay واقرت ani hantidaas maxaa lagu leeyahay ma waxa weeye waxa ay galay dee waa lagu leeyahay mise waxa weeye dee waxaan maan ogeyni diinta maxay ka qabtaa wax lagugu leeyahay mala maadaama aad ogeyn waxba aad ogeyn wax lagugu leeyahay mala oo ku sii asagana ugu Sax. sii ka xadin ama ka xoogin ani kan xadin isaga waa ii haneeyay wiis adaa iskale insha Allah wax laga rabo mala jazaaka allah khayr sheekh عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركا ninka wuxuu ruujiisa laga leexiyay markuu saas yiri wuxuu yiri hadda cadiyadii wixii bayt maalka Allah misinaysa mayu yiri xaqa u leeyahay taas umada la mid tahay fiir waa xanaaqsan yahay nin walaalkiis dilay way hadan umadu waxay leeyahay xukunka kama qaadin anaga mushkiladna hayso waxay tahay Soomaaliland ikhwani laba qofood markay isdagaasho qabiilkoodu dhan isdagaalay ko wala labada qof isdagaasho maxaa qabiilka iskaga jira laba qof isdagaasho laba siyaasi kala adkaatay أنا دفاعي كان جنبه يجينا مثلا كان نارتي جينا كان جنبه يجينا ما كله اسكبت أنا وحوي لبح على أي بنان إن دح هذه محيته وإن طائفتان من المؤمنين إله القرآن يقول لي لبك واحد إصدقالان وأنا واجب كي وحوي لبق قبيل كي أصدقاله فأصلحوا بينهم إن صلحوا كشقي صلح يقول محيته عدالة الناس سميو إن الصلح هذا ضدك قرصي كرين ونيكو وحو قردين ديق قرق صلحي ما هنكاس marka aniga mowqifkii waxa way laba siyaasi isdagaal umad dhina ala kicina warabadan siyaasi ilmahooda ay wax siistaan marka kursi ku fadhiyo wax ma isii aniga wax ma isii aniga ilmihiisu wax siistaa laakiin markii uu dhibaataysan anigu soo carara
waxaan leeyahay adaa raasatay kursigaas aniga kuma darsan aniga kuma doono tolka xataa kuma geynin meesha adaa tagay kaliga afar odayaan meel soo aruursataa tiri haddaa run sheegaysa shacabka ha ku doortaan dad kaagu yidhaha ninkan waa fiican yahay dadka ha kaa dhex doortaan ma kaa dhex dooran karaan kuwa hadda joogo dhan hata haddii cod doorasho ay galaan anima qabad nin aan la kasayn dooraan u malayna maxaa yeele waa la yaqaanaa kulligood marka cadaalad saasna uu sheegi kartaa la rabaa oo qofka muslimka oo cadaaladaas naga maqan marka xadiiskaasaan kusoo qatimaya oo qofka inuu ku dadaalo oo markaa caraysan tahay cadaalad ha ka leexanin cadaaladana ha samaynin marka adiga qanacsan tahay oo qaraabadaada arrintu isugu toosan tahay cadaaladda leh ka hadlin cadaaladda dadka dulman ka hadal xaqooda cadaaladdaas haddaan samaynimaho maalin kasta ilahay ninoo nagu soo sallida ummaddana saas iskaaga daba wareegeysaa ilahay waxaan ka baryay wax haddaan qalday nafteydii sheedaani ka ahaaday haddaan saxna tawfiiqa ilaahay subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu